السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال كلنتي وعن oo wanaagsan kusoo dhawaada Muumin Academy waxaanu bilaabi doonaa casharadii ku aadanaa Premiere Pro video editing waxaanse marka hore baran doonaa interface-ka ama wajiga hore ee uu leeyahay software-kan Premiere Pro sida loo isticmaalo sida video loogu soo daro iyo sida loo toosisto ama loo kala habaysto daaqadaha uu leeyahay Premiere Pro casharadaas ayaan baran doonaa kusoo dhawaada mar kale Muumin Academy waayahay marka aynu saasi aynu u soo gallo waxaynu keeni doonaa daaqadan noocana marka hore ee aad saasi u soo kiciso daaqadan haddii aanad markaasi aad ku cusub tahay software-kan oo qofku cusubo marka soo dejistay sibkiina ka saaray video hore oo aynu kaga hadalay ayaa jiray sida sibka looga saaro videoga haddii aanad soo daawo markaad sibkana ka soo saarto aad computerkana ku shubto waxa uu ku keeni doonaa daaqadan marka aad soo kiciso software-kan Premiere Pro haddii aynu halkan eegno halkan waa recent oo markaasi waxa weeyaan saaxiibayaal haddii recentiga halkan haddii aad ku cusub tahay kuma soo dhigayo markaasi wax markaasi shaqo oo aad hore ugu qabatay maadaama aad ku cusub tahay laakiin haddii aad hore usoo isticmaali jirtay daaqadan halkan wuxuu kusoo dhigayaa waxyaabihii aad markaasi hore usoo isticmaalisay halkanna waa new project markaad project ama shaqo cusub ku bilaabayso open projectina waa project wax kaaga harsanaayeen markaad markaasi aad soo furayso marka waxaanu u galaynaa oo waxaan leenahay new project marka aynu sound idhaahno waxayna keeni doonaa halkan ayayna keeni doonaa halkan marka uu sign keeno halkan ay ku qoran tahay name waa halkii aad markaas ka dooranayso projectigaaga magaca aad u bixin lahayd waxaynu la baxaynaa kale tusaale ayaanu la baxnay halkan iyada waxaad ka dooranaysaa meeshii aad dhigi lahayd markaasi videogaaga ayaad halkan ka dooranaysaa halkan iyadana haddii aynu eegno waxa weeyaan waa graphics haddii uu leeyahay markaasi computerkaagu waxaa ku wanaagsan inaad doorato taa sare haddii uusan graphics lahaynna waxaad dooranaysaa tan waxoogaa culays buu markaasi yara dareemi doonaa marka waxaa wanaagsan inuu graphics lahaado computerkaagu taasi ayaa wanaagsan si aana software waxyaabo culus oo kale shaqo culus ama video culus oo kale markaad ku diyaarinayso si aanu kaaga cuslaa soo markaa halkaa inaad doorato GPU ay ku taalo ayaan kugula talin lahaa taas ayaynu dooranna halkan iyada waxba ka bedeli mayno halkan haddii ay markaasi ay ku tahay DV waxaad ka dhiganaysaa HDV ayaad ka dhiganaysaa markaas kadibna okay ayaan leenahay okay marka aynu sound nidhaahno waxa uu keeni doonaa interface-ka ama halkii shaqadii ugu badnayd aynu ka qaban lahayn markaas marka aad joogto halkaasi editing waxa uu kuu soo dhigayaa 4 daaqadood daaqadan koowaad iyo daaqadan labaad iyo daaqadan saddexaad iyo tan afraad daaqadahan marka aynu kala baranaya muhiima marka aad software kasto aad baranayso waa inaad interface-kiisa aad barato halkan haddii iyada markaasi aynu eegno oo kale iyada waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa projectigu waa meeshii markaasi wixii ku diyaarsanaa hadday noqoto videoyo hadday noqoto sawiro hadday noqoto codad iyo looga iyo graphics oo dhan waxa ku saabsan ayaad markaasi halkan aad kasoo gelinaysaa halkan iyada markaasi haddii aynu iyadana aynu eegno waxaa la yidhaahdaa source monitor ayaa la yidhaahdaa iyada sourceguna waxa weeyaan videogaagii aad edit garanaysay waa halkii aad soo marsiin lahayd haddii aad markaasi aad qeyb ka qaadanayso videogii keliya haddii aad soo qaadanayso haddii aad codka keliya soo qaadanayso videogaaga watay intaba halkan ayaad iyadana ka qabanaysaa iyo waxyaabo kale oo badan marka iyada halkan maxaan nidhi halkan iyada waxaad ka qabanaysaa waa videogaagii aad edit garanaysay halkii aad soo marinaysay weeyaan markaad halkan kasoo geliso marka hore videogii halkan ayaad soo gelinaysaa kadibna videogaagii haddana waxaad usoo wareejinaysaa qeybtan oo la yidhaahdo timeline sida halkaa ka muuqata ama timeline ama sequence baa la yidhaahdaa
markaas sequencega ama timeline-kan iyadana markaasi maxay tahay? waa halkii codadkii iyo waxyaabihii videogaaga effectiyadii haddii noqoto halkii aad kaga soo dari lahayd weeyaan. halkan iyadana waxaa la yidhaahdaa program monitor ayaa la yidhaahdaa, oo program monitorku iyaduna waxa weeyaan programka waa halkii aad kala soconaysay markaasi videogaagii shaqada aad ku waday, halkii aad kaga soo muuqmayay aad view kaga sameynaysay weeyaan, aad ka daawanaysay, aad ka eegaysay bal videogaagu qaabka uu socdo. iyadana si toos ah ayaynu u ogaan doonaa bal shaqada ay qabato video ayaynu soo gelin doonaa. halkan iyada haddii qeybtan yar ee luuqa ku jirta haddii aynu iyadana eegno, kow iyaduna markaasi waxay ka kooban tahay tools weeyaan. tools baa la yidhaahdaa, mid kastana magac ayaa loo yaqaanaa. tan koowaad iyada waxaa la yidhaahdaa selection tool, oo markaa shortcutkeeda iyadana loo isticmaalo waxa weeyaan waa v. tan ku xigtaa iyada haddii aynu eegno, iyadana waxaa la yidhaahdaa track select forward tool ayaa la yidhaahdaa. markaasi shortcutkeeda loo isticmaalana waa a. sidoo kale haddii halkan iyadana aynu eegno, tanna waxaa la yidhaahdaa rebel edit tool ayaa la yidhaahdaa, rebel edit tool. halkan iyada haddii aynu iyadana markaasi eegno, waa eraser tool baa la yidhaahdaa, oo shortcutkeeda iyadana waxaa weeyaan markaasi waa c. middan shortcutkeedu iyadana waxa weeyaan waa b. halkan kale ee ku xigta iyadana waxaa la yidhaahdaa sleep tool ayaa la yidhaahdaa. sleep toolkaasi markaa iyadana waxaa shortcutkeedu waa y. halkan waxaa la yidhaahdaa iyadana waxaa la yidhaahdaa pen tool ayaa la yidhaahdaa, oo shortcutkeeduna waa b. halkan kale ee iyadana ku xigta waxaa la yidhaahdaa hand tool, oo shortcutkeedu waa h. halkan kale kusii xigtana waa tape tool ayaa la yidhaahdaa, ama waa qoraal oo kale markaad videogaagi ku dirasid, iyadana waxaa shortcutkeeda loo soo gaabiyaa t ama text. so markaa intaasi waa intaa. sidoo kale iyadana waxaan baran doonaa qaabka aad markaasi video ayaynu soo gelin doonaa. videoga markaasi aan soo gelinayo waxa u yaalaa desktopka, adiguna waad ka dooranaysaa meeshii ku yaallo kaada garanaya. aniga desktop ku yaala, kadibna videogaygu waxa uu markaasi uu igu jiraa folderkan ayuu igu jiraa, waa kan ay ku qoran tahay video train. markaan double click idhaahdo waan soo dooranayaa, kadibna open ayaan leeyahay. open markaan saasi u idhaahdo, videogeenii bartan ayuu inoo soo galay. haddii aynu videogeena iyadana markaasi waa waxyaabo badan ayaad iyadana halkan ka bedbedeli kartaa videogaagu qaabka uu soo muuqmayo. imanka icon oo kale ayuu noogu muuqmaa. waxaad tegi kartaa list view, oo noocan oo kale ayaad ka dhigi kartaa. halkan oo kale waa halkii yare zoom ood markaasi size-ka kasoo weyneysay marna aad ka yareyneysay. haddii magaranaysaay videogii oo kale aad garan weydo, videoyo badan halkan ku yaalaan oo buuxdo ood kala garan weydo, halkan list view ayaad soo furaysaa. sidoo kale iyadana markaasi haddii aanu halkan barano, waxaa la yidhaahdaa new item. halkii aad kasoo gelin lahayd sequence ayaad halkan ka sameysanaysaa. sequencega markaasi halkaa ayaanu ka sameysanaa. sequencega aynu sameysano halkan markaa waxaynu kasii dooranaa halka ay ku qoran tahay array. kadibna sidaas weeyaan, halkaas ayaa soo furaysaa labaad. kadibna waxaan dooranaa videogeenu frameka uu leeyahay. videogaagu frameka uu leeyahay sidee ayaad ku ogaanaysaa? haddii aan tan cancel iska soo nidhaahno kasoo noqono, waxaad ku ogaanaysaa videogaagani frameka uu leeyahay. waxaad keyboardka taabanaysaa keega dhanka bidixda ka xiga number 1ka oo la yidhaahdo tilde. markaad saa u taabato, halkan ayaad frameka aad markaasi aad ka eegaysaa. frameka uu videogeena leeyahay waa 23.
haddii aad markaasi framekii aad garatay tilde ayaan haddana leenahay, dib ayaynu soo noqonnaa, sequence ayaan leenahay, kadibna waxaan leenahay inoo door markaasi maadaama 23 kan ayaabaan iska dooranaa, kan 24 ayaynu dooranaa. halkan iyada markaasi waxaad gelinaysaa magacaad ula baxan lahayd sequencegaaga. waxaan leenahay oo kale train, kadibna waxaan leenahay okay. markaad sequence saa u samaysato, sequencegu wax kale ma aha, qaybtan kale ee timeline-ka ayaa ku furmasa. halkan markaa timeline-ka haddii iyadana aynu bal kala barano, halkan waxaa ku qoran waa video 1, video 2, video 3. halkanna waxaa ku taala audio 1, audio 2 iyo audio 3. macnaha waxa weeyaan waa videogaaga koobaad bartaa ayaad soo gelinaysaa, videogaaga labaadna bartaa ayaad soo gelinaysaa, videogaaga saddexaadna halka ayaad soo gelinaysaa. waa hadiiba intaas oo video aad haysato ama intaas oo audio. halkana audiyihii sidoo si lamida, audiyahaaga koowaad, audiyahaaga labaad, audiyahaaga saddexaad halkan ayaad soo gelinaysaa. halkan m ee ku taalo waa mute, ayaad markaasi codka ayaad ka xidhaysaa. halkan iyadana waxaa la yidhaahdaa solo track ayaa la yidhaahdaa. halkan iyadana voice over record, waa marka aad ku dulduubayso videogaagii cod aad markaasi ku duubayso. okay, iyada marka videogaaga waxaad usoo gelinaysaa, marka videogii ayaa dooranaysaa. waxaan rabnaa videoga maadaama aynu nidhi halkan ayaan keenna inaan videogeeni intaan sidaas markaasi aan u qaadno, aan videogeeni barta kusii dayno. okay, haddaba dib haddii ayaan usoo noqono, waxaad samayn kartaa codkii oo keliya ayaad soo qaadi kartaa, oo halkan ayaad drag kusoo leedo kusoo jiidi kartaa, ama videogii oo keliya ayaad halkan kusoo jiidi kartaa, oo halkan video 1 ay taalla ayaad keeni kartaa, codkana audio 1, ama labadaba waad soo qaadi kartaa halkan, dabeetana halkan ayaad saasi markaasi aad ugu soo jiidi karaysaa. marka waad aragtaan oo videogeeni waa uu yimi. videogeeni halkan waxa inoo yimi qaybta timeline-ka. marka videogeena waxaynu ku samayn karaa, halkan wayn jarjari karaa, effect ayaynu ku dari karaa, animation ayaynu ku dari karaa, sidoo kale waynu qaadi karaa, halkan ayaynu geyn karaa, dib ayaynu soo celin karaa. halkan iyadana videogaaga ayaad markaasi aad ka yareyn kartaa, halkan ayaad ka yareyn kartaa, waanaad ka dheereyn kartaa. qaybtan oo kale haddii ay kugu yaraato, iyadana waxaad samayn kartaa, halkaas ayaad tegi kartaa, kor baad u qaadi kartaa. haddii ay kugu yaraato waxoogaa way soo weynaanaysaa, halkan oo kale ayaad saa u tegi kartaa, sidan ayaad odhan kartaa. marka iyada qaybtaasi waa intaa. xoogaa haddii aan sideenii kusoo celiyo, sidoo kale waxaad samayn kartaa videogaagii, bal horta videogii aan daarno, aynu daawano. haddii aynu markaasi codka aynu iska reebno, isaga right click ayaad markaad codka iyo kala reebayso, imanka way isku select garaysiin, waxaad samaynaysaa right click ayaad leedahay, kadibna unlink ayaad leedahay, kadibna kaa doonto ayaad qaadi kartaa. halkan oo kale iyadana waa magnet oo videoga ayaan ma garanaysaa. haddii imanka halkaa aynu geyno oo kale magnetkan, bal hadda aynu eegno, wuu ku yaro dhegdhegayaa meeshii wale ay markaasi iska jaraan waxoo kale line oo kale wuu ku dhegaya, kolba halkaas kale wuu ku dhegayaa. haddii aad rabto inaanu kaaga dhigin, halkan ayaad ka calaamadda aad ka qaadaysaa, imanka meesha doonto adiga ay control meel laba kuma dhegay. sidoo kale codka isaga waa iska dhilid ayaad odhan kartaa. kuwan iyaga markaasi waa kuwii markaasi videogaaga oo kale xagga dambe ayaad marna tegaysaa, marna xagga ugu horeysa ee videoga ku dhammaado ayaad tegi kartaa. halkan waa halkii aad muuqaalkaaga kasii deynaysay. kuwana in yar ayaad iyagana aad dhinac u socon kartaa. ta kale aan markaasi aan rabo inaan idin baro waxa weeyaan, halkan iyada ah oo markaasi aan daaqadahan 4 daaqadood qaybo yaryar oo kale ayaa hoos imaada. tusaale ahaan oo kale halkan waxaa hoos imaada
effects control ayaa imanaya oo markii aad ku darayso effect iyo aad videoga aad wax kaga bedelayso oo kale codkaaga oo kale haddii aad isaga aad wax ka bedelayso halkan oo kale ayaad isticmaalaysaa. haddii mataqaanaaye daaqadahan oo kale ay iskaga kala dhex daateen oo kale tusaale ahaan oo kale kan ayaa tegay halka, kan ayaa mataqaanaaye halkan isna kaa yimi, wixiiba way iskaga kaa dhex qasmin, kaasa isna halkaa tegay oo saas oo kale ay ka noqotay. halkee ayaad ka hagaajinaysaa? waxaad ka hagaajinaysaa waxaad imanaysaa marka aad joogto editing. adigoo jooga editing ayaa waxaad leedahay Windows, kadibna waxaad leedahay workspace, kadibna waxaad kasii dooranaysaa save as new, waxaad leedahay reset to save it. markaa waxaad leedahay reset to save it layout. markaad Windows ka doorato kadibna sidiisii hore ayaa lagugu celinayaa, waa haddii ay iskaga kaa dhex qasmaan. haddii aadan sidan jeclaysan oo kale waxoogaa kan oo kale waad qaadi kartaa, meesha aad doonto ayaad dhigi kartaa. haddaad doonto geeskaas oo kale ayaad dhigi kartaa, mid walba meesha aad doonto ayaad markaasi aad geyn karaysaa. haddii aadan doonahayna sideedii ayaad markaasi aad iskaga ceshan karaysaa. intaasi waxaa ahayd hordhac markaasi aynu ku barananay interface-ga ama markaasi markaad bilaawayso software-kani Adobe Premiere Pro. haddii aad muuqaalkan ka heshay nagu soo biir, sidoo kalena channelka subscribe wixii fariina markaasi ama aad u baahan tahayna qaybta commentiga noogu reeb. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.